gaarana oo amniga ka tirsanaa isagoo laftigiisa guddiga amniga ayaan fursad siini lahaye xildhibaan gaarana. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين على امور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بعد مدحوينها جمهورية الصومالية قدوميها قولها شعبك رئيس الوزراء حكومة وزير رضا حلدبان رضا سياسيين تهوري علماء الدينك الرضا هوينك قرب جوجتا يدمان كسوق يبقلياشا دود وذاقن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمانتي سلام كدب runtii waxaan leeyahay marka hore waa kaftamaya waxaan leeyahay caawa waxaad moodaa wadadii habeen laga lumay maalin la hel inay tahay baad moodaa caawa oo wax badan oo dowladnimadeena dib u dhaca ku keenay inay ahayd qaranka Soomaaliyeed iyo shacabka uu adeegayo oo iska warhayn haddii xataa service fiican iyo adeeg loo qabtay inaan la gaarsiinayn waxay ka warqabaan baynaysan jirin siyaasiyiinta laftooda inay sidaas oo kale yihiin oo aysan ogeyn xukuumadda waxay hayso golaha baarlamaanka oo aysan ogeyn madaxweynaha iyo waxa hay-adaha fulintu ay hayaan. marka waxaan isleeyahay doodan waa dood loo baahnaa runtii in madaxweynihii qaranka soo fadhiisto guddoomiyaha baarlamaanka ra'iisul wasaaraha madaxda qaranka ay soo hor fadhiisato shacabkoodii bulshadoodii qaybaha kala duwan oo dhan lagana fiirsado daafaha caalamka oo dhan su-aashii rabana la weydiiyo waa wax furaya albaabkii xirnaa ee dowladda dhaliisha koowaad ay lahayd furaya wey. runtii maadaasna waxaan u celinayaa telefishinka universal ragga u adeega oo aan isleeyahay in badan haddii marka horeba talada wax laga siin lahaa wax badan baa hagaagi lahaa. waxaan isleeyahay tani waxay u eg tahay in dowladdu ay wadaag tahay oo bulshada qaybaheeda kala duwan oo dhan ay caddaynaysa inay wax ku leedahay oo la soo fariisiyo oo la yidhi kaalay aan tashanne oo aan ka tashanna dowladnimadeenna waxaa nusqaanta uu ku jiray aan caddayno. waxaa loo baahan yahay in muxuu ahaa hadda inaga dhiman sida loo hagaajin lahaana tala ka bixiya arrin muhiima waayo oo loo baahan yahay runtii aniga aragtidayda. intaas markaan ka baxo oo aan usoo laabto ajendaha hadda yaalla oo ah tiirka ugu muhiimsan dowladnimada qarannimada tiirka ugu muhiimsan waa amniga. haddaan amni la helin hay-adaha kaloo dhan ma shaqayn karaan nolosha bulshadoo dhanna ma jirayso xataa cibaado ma jirayso xataa diinta lama baran karo haddaan amni iyo nabadgelyo jirin. dowladnimo waa nabadgelyo iyo amni. amnina askari baa suga taa la ogaado amnigana askari baa ka shaqeeya hay-adaha amniga golaha wasiirada talisyada hay-adaha amniga ama talisyada ciidamada ilaa askariga dawlaha ugu hooseeya ayagaa amniga ka shaqeeya. marka waa ka mahad celinaya ahmiyadda la siiyey ee lasoo horumariyey tiirarkii la-daa loo soo horumariyey ayadana waa wax meesha ku jira. intaa markaan ka baxo waxaan leeyahay runtii maanta qof kasta oo mas-uuliyadda amniga Soomaaliya loo dhiibo ee looga dhigo wasiir ama looga dhigo taliye waa imtixaaman yahay. maxaa jira wax kasta oo burbura oo baabaa oo dhammaada marka dib loo dhisayo waxay u baahan yihiin in step hoos inta laga soo bilaabo ilaa meesha ugu dambaysay la gaarsiiyo u baahan yihiin. dalkeena wuu burburay markuu burburayna soo kabashadiisa waxay rabtaa in bulkeeti laisku saaray rabtaa hal mar cid keeni kartaa ma jirto ayay u baahan tahay. waxaan leeyahay marka anigu waxaa sida la sheegay sarkaal booliisana waa ahay oo amniga waxbaa ka garanaya. caqabadaha maanta yaalla ee haysta dowladdeennan iyo kuwa ka horreeya kumeelgaarka ah lama tirin karo xagga amniga. ciidamada Soomaaliya khayr Allah siiyo ee wadaniyiinta ee qaranka iyo shacabka difaacaya tababar xagee lagu siiyey discipliin iyo kala dambeyn iyo dowladnimo xagee lagu baray goor la baray ma haystaan. haddii uusan tababar fiican haysan askarigu discipliinka aan la barin wadaniyadeena lagu bari jiray 6 bilood iyo ka badan ee lagu bari jiray xariyaha ciidanka aan laga soo dhaadhicinin
dalkiisu inuu u dhinto difaaceeda waajibnimadeeda haddaan la soo barin askarigu waa kee waa dhaliilaha waxyaabaha jira ee amniga culayska keenaya ka mid ah wey askariga sidaa laftiisa xuquuqda uu haysto markii waajibaadka la siiyo xuquuqda uu haysto wuxuu leeyahay inta aan leenahay oo kale xaas buu leeyahay caruur buu leeyahay hooyo aabuu leeyahay mas-uuliyaad ka dambaysa mas-uuliyaadka saaran inuu guto oo dadkiisa iyo caruurtiisa uu daryeelo imisuu askariga soomaaliyeed haystaa ayada lafteeda caqabadaha ayaalay ka mid tahay muraalka askarigu ma dhisan yahay askari muraalkiisu dhisan yahay ma yahay midkaan amnigu inuu noo sugan rabno caqabadaha ayaalay ka mid yahay oo dalkeenna haystay ka mid tahay xaqiiqadii culaysida jira iyo caqabadaha jira waxaa ka mid ah waxaa lala dirirayaa maxay yihiin dal naga soo horjeedo oo xuduud noo taalo oo markaad dabaabaadkiisi diyaaradihiisa aragtaa u diyaar garoobaysaa maxaa la dalka laga difaacaya waxaa la difaacaya muxuu yahay waa wiilasheennii iyo gabdhaheennii oo guryaheenna ku nool oo la khalday oo haddana aadan garanaynin jaamacadda adigoo ka bixinaya iskoolka ka bixinaya cuntada siinaya labiska u xiraya ayuu haddana inuu ku dilo shacabka baabiyo ka shaqeynaa mana ogin maalin maalmaha ka mid a la ogaanaya laleeyahay ina hebel waa al-shabaab lama oga guryahay ku nool yihiin qofka marka noocaasa ee midabkeenna le dhagorteenna le guryaheenna ku nool in la ogaado oo lasoo qabto oo wax laga qabto imisay qaadanaysaa dhibaato intee leeg bay ku hayaan bulshada dhisan ee xuduudahooda u xiran yahay ee baddooda ilaashanaya ee hawadooda ilaashanaya goroomadooda ilaashanaya ee awoodooda dhaqaale iyo midooda siyaasadood taniyadooda haysta imisay dhibaatay ku hayaan ururadan imisay dhibaatay ku hayaan gee joogna annagu kuwa ugu nugul baa nahay waxa marka la sugaya aanka laga sugayna waa qoladaa wey waa caqabad marka taalo wey oo xalkeeda qof kastoo soomaaliya inuu ka fikira loo baahan yahay wey anu waxaan ahay nin amniga wax ka og oo waxaan ka warwaraa qof kasta oo loo dhiibo hay-adahaas waxaan ka warwaraa runtii culayska haysta iyo dhibaatada haysataa ayaan ka warwaraa in badan waxaan leeyahay aad baa loo dadaalaa runtii wax badan baa noo qabsoomay dowlad kasta oo midda kala bedeshaa wax badan baa isbedela in amnigu uu jiro amni jiro waxaad ku garanaysaan xilligaan caawa meeshan aan fadhino waa kala tegayna magaaladaan aadayna nin walba baabuurkiisuu qaadanaya meeshuu deganaa uu seexanaya 8 saac habeenimo 9 saac habeenimo haddaan kala tagno magaaladeenni waxaa ka socda muqdisho dib u dhis baa ka socda quruxdeedii bilicdeedii waa soo laabanaysaa dadkii shalay amni darada ka tegay waa soo laabanaya qurba joogta ah oo doonaya inay dalkooda maalgashadaan haddii nabadgelyo daradii shalay ay ka carareen ay jirto miyay soo laaban lahayn maya wax lagu soo noqday inay jirto oo qarannimo bilaaban tahay dowladnimo bilaaban tahay oo nidaam jiro ayaa taas albaabkii ayay waxay u tahay daliil u tahay marka waan dayrsanaynaa laakiin wax badan baan haysanaa runtii caqabado ma jiraan dhaliilo ma jiraan waa aaminsanayna iyadoo caqabadahaas jiraan in dhaliilo jiraan dhaliilaha jira kow waxa weeye aniga aragtidayda hay-adaha amniga hay-adaha la yidhaahdo ma wada shaqeeyaan 100% wasaaradahooda talisyadooda ku-xigeenadooda hogaamadooda ma wada shaqeeyaan haddii aysan hay-adaha amniga wada shaqeyn gaashaandhiga maxaa la yidhahdaa wasaaradda amniga garsoorka hay-adaha loo yaqaan amniga haddayna mar walba wada shaqaynin oon isku tala ahayn hataa amniga jiraayo dhaliilaha aniga jiro waa ku dhex jira oday baana dowladdana waa ku dhex jiraa dhaliilaha jiro ay muuqanay ka mid tahay wada shaqayn la-aanta hay-adahaas waxaa laga yaabaa taliyihii iyo taliya xigeenkiisi inay salaanta isla gara maraan marka qaarkood ma imaanayo amni taas kuma imaanayo dhaliilaha jiray ka mid tahay labada wasiir haddayna isla shaqaynin ma imaanayo amni waxaa taas ku dhex jirta gobolka banaadir maalinta badan ka wada shaqaynaa gobortooraha gobolka banaadir iyo maxaa la yidhaahdaa guddoomiyeyaashiisa degmada iyo talisyadu haddayna wada shaqaynin taliyaha booliska taliyaha nabad sugidda guddoomiyaha degmada taliyaha saldhigga taliyaha nabad sugidda degmada haddayna wada shaqaynaynin oo hal qof isku ahayn hal qof haddayna isku ahayn oo wada shaqaynin amni ma imaanayo waxaa jira kulligood mas-uuliyad baa ka saaran xaafadan nin guddoomiyuu ka yahay nin taliya saldhig weeye nin waa taliya nabad sugid 3 mas-uul waaye 3daa mas-uul waa inay leeyihiin qof xukuma ayaga laftooda guddoomiyaha degmadu waa inuu xukumaa ama cid isagaa inuu xukumo wey oy kala amar qaataan oo isku xiran yihiin haddaan la helin
hadda xaafadda nin waliba waa xukumaa gaar buu nooga shaqaysanaya dhalinyaraha jiray ka mid tahay waxaan raba in laisku xiro waxaa kaloo ii muuqanaya aniga oo waxa ii muuqanaya tahay ayada soo celiyo dib loo soo celiyo disbiliinkii iyo kala dambayntii ciidamada in dib loo soo celiyo kala amarda qaadashadii inay soo noqoto kala dambayntii inay soo noqoto waa isku xirnaantii ciidamada amnigu inay soo laabtaan waxyaabaha intaba ay ka mid tahay in xoog la saaro gabagabadii waa ku dheeraadaan filayaa in la abuuro kalsoonida shacabka soomaaliyeed in la abuuro kalsoonida shacabka soomaaliyeed kalsoonida shacabka soomaaliyeed in la abuuro kalsoonida maadsantiin dumarka waa maadsan yihiin barnaamijka waxaan u malaynayaa xildhibaanka ku dheeraaday sidaa daraaddeed raalli naga ahaad waa maadsantiin xildhibaan soo gabagabayna وعلى جنين قبل كل الساس وعلى كل هذا واحد بين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.